walaalayaal waxaa maragma doona inaynu joogno xilli fitnadu ay meel walba inaga soo gelayso, gelin hore iyo gelin dambe, maalin iyo habeen, goobaha cibaadada inagoo ku sugan iyo goobaha ganacsiga, guryaheenna gudahooda inagoo joogna, gogasheenna inagoo ku jiifna, inay fitnadu mar walba ka hortaallo oo mobilka aad haysato wax badan lagu soo dhex marinayo, fasaad badan iyo fitno badanna ama ha noqoto qofka caqiidadiisa kuwa saamaynaya, ama fitnadaasi ha noqoto fitnatu shahawaat oo xumaantii iyo macaasidii iyo zinadii iyo fawaaxishtii iyo dumarkii qaaqaawanaa iyo hadalladii xunxumaa ee laga xishoonaya mar walba ay soo saaran yihiin social media. xaaladdu markay saasoo kale noqoto waxaa muhiima mar walba in la isxasuusiyo in alla subxaanahu wa tacaala sikin tallaabo kastoo aynu qaadayna uu la socdo. farta aad mobilka ku dhaqaajinayso iyo waxa niyadaada ku soo dhacaya inta aadan samayn, inuu alla subxaanahu wa tacaala si duuduuban iyo si faahfaahsan, si xeel dheer alla subxaanahu wa tacaala inuu ogyahay. taasi qalbigaaga haddii ay degto oo aad og tahay alla subxaanahu wa tacaala iyo awoodihiisa, iyo alla subxaanahu wa tacaala inuu awoodo laxdada aad dembiga ku sugan tahay inuu nafta kaa qabto oo khaatuma xumo lagugu khatimo, oo wixii aad qarsanaysay ilaahay uu bannaanka u soo saaro. dareemada noocaasi markay qalbigaaga degaan ee aad la noolaato, ee aad xasuusnaato, ee aad isxasuusiso, wax badan oo aad samayn lahayd baad ka joogsanaysaa. odhan mayno qofku ceebka saliim buu noqonayaa, wuxuu noqonayaa mid aanu dembi ka dhacayn, laakiin wuxuu noqonayaa qof qalbigiisa iyo damiirkiisu nool yahay. hadduu khalad ka dhacana si dhow uga soo laabanaya. ka laga digayaa waa ka alla subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay: yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allah wahuwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl. ka dadka markuu dhex jooga wanaagga muujisanaya, markuu keliyoobo jaanis uu helo, aan u aabba yeelayn wixii alle subxaanahu wa tacaala cadhogelinayay. culimmadu waxay aad uga digeen, waxay yidhaahdeen khaatuma xumadu waxay ka imanaysaa dunuubu lkhalawaat aslun lilintikaasaat, wa cibaadaat lkhalawaat aslun lithabaat bay culimmadu yidhaahdeen. dunuubta la qarsadaa waa kuwa khaatuma xumada keenaya. cibaadooyinka iyo camalada wanaagsan ee la qarsanayo ee adiga iyo alle subxaanahu wa tacaala idin dhexeeyana waa kuwa khaatumada wanaajinaya. qofbaa muuqaalkiisa aan wanaag badan laga arkay, xumaan samayn maayo, laakiin markuu keliyoobo ayuu alle subxaanahu wa tacaala si dhaba ugu cibaadaysanaya, khushuucaya, ooyaya, alla ku xidhmaya, dadaal badan samaynaya. markuu dadka u soo baxana waa isqarinaya, ummadda ayuu ka mid yahay. khaatuma laga yaabo wanaagsan ayuu alla subxaanahu wa tacaala ugu khatimaya. mid kale markuu dadka dhex joogana wanaag buu muujisanaya, khayr baa ka muuqda. markuu keliyoobe jaanis gaara uu helana alla subxaanahu wa tacaala isma yaqaanaan, kama xishoonayo, kama haybadaysanayo, ka biqi maayo. wuu isi low siinayaa alla subxaanahu wa tacaala inuu taalacanayo. kuwaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xaalkooda inooga warbixiyey. wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam: maalinka qiyaame waxaan ogaan doonaa dad ummadayda ka mid ah, dadkaasi gaalo ma ah, aqwaaman min ummatii wa ummatu lijaaba
waa kuwii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ajiibay ee rumeeyey. dadka noocaasa ayaa maalinta qiyaame xaalkooda aan ogaan doonaa. waxay la iman doonaan xasanooyin iyo cibaadooyin buuraha tihaama laaleeg oo cadcad sida ay u muuqanayaan. salaad badan iyo soom badan, sadaqo badan, cibaadooyin badan ayay la imanayaan.